xaqiiqadu waxay tahay inagu agreementkii aan saxeexnay inaynan meel ku sheegi karin oo dhibaato ayaa dhacday lacagta leeyahay central bank la dhigay ee shalay aan ruushka ka wada hadlaynay meel ku dambeysay cidina ma oga kontaraageedina ma hayno iyagu waxay noo soo diraan oo saxiix ka aragno waxa taa saxiix qofkiisa xayday maanta ma joogay anaan authenticate karayn karin anaan xaqiijin karin ayaan ku qasbanahay inaan aqbalno waana mashaakil inagu aan geysanay way wax waliba laakiin waa qoran wax waliba halkay ku baxeen ay ku qoran tahay halkan ay ku taalaa beeraha lagu qoday wadooyin baa lagu sameeyay airportka Kismaayo lagu dhisay sonkortii sugar factory baa lagu sameeyay wadan waliba wuxuu ku qabtay lacagta ama ha bixiyo lacagta ama yaanu bixinay halkan ay ku qoran tahay ya marka yaani waa xaqiiqo weeye inaan iska hubino weeyaan laakiin maanta adduunyada dad iyo Soomaaliya wadana fara badan oo inaga inala jira badan oo inala shaqaynaya oo Soomaaliya dhibaatada inay ka baxdo ka shaqaynaya sababtu waa maxay sababtu waxa weeye adduunka waxay dani ugu jirtaa cid walba Soomaaliya oo loo yahay halka ku taalo oo haday dhibaato ka timaado dabku ku holaaqaya meel walba oo aan Horn of Africa degin hadaan Soomaaliya degin Horn of Africa dan weyn laga qabo sida daraadeed baa la leeyahay Soomaalida hal dejiyo one second issue waxa weeye Soomaaliya oo khayraad badan leh oo dhulka iyo badaba ku duugan yahay ayaa waxa himilo laga qaba waxa rajo laga qaba in wadanada qaar ka faa'iideysan karaan oo de marka wax la inala soo saaro shirkadii waxa inala soo saartaa way ka faa'iideysanaysaa marka adduunku wuxuu iska dhaadhiciyay waxay dani ku jirtaa Soomaaliya in la dejiyo sida daraadeed waxa jira dad fara badan oo inala duuban ya oo sida Soomaalida qaarkeed inoola duubnayna ahayn inala duuban oo wax nala qabanaya good example baan siinaya maanta deemihii la inagu lahaa ee IFIs ka qolooyinka la yiraahdo inagu lahaayeen ee ay ka mid yihiin African Development Bank iyo World Bank iyo hay'adda lacagta adduunka intoodii badneed waa la dhaafay IMF kii la haray IMF kuna bisha 25keeda waa dhaafayaan ishii bugtay ku bikacso waa dhaafayaan maxay ku dhaafayaan hab lagu dhaafaa jiro formulooyin oo complicated oo dadka bowsadow aydan fahmi karin ma fahmi kartaan aniga dhigaysana idin sheegayay waxa weeye dadka lacageed ku leeyahay institutions ka lacagteed ku leeyahay waxba ma cancel gareyn karaan qaanuunkooda diidan hab baa la sameeyay marka hab ayaa la sameeyay lacagtana la inooga dhaafo iyaguna aanay lacagtoodii u waayin ayaa la sameeyay habka bridge financing baa la yiraahdaa bridge financing ayaa la yiraahdaa hadaanad aqoon waxba hayso wareerinay dad badan oo aan aqoon baa jiray akhriso waad fahmi doontaa akhriso bridge financing hadaanay dalalku inala duubnayn Ingiriisku hadaanay inala duubnayn hadaanay Norway inala duubnayn hadaan Talyaanigu inala duubnayn lacagaha qaarkood may bixeen laana meel bridge loo baahay bridge ya bridge waa buundada waa un Talyaani bridge na waa Ingiriisi maxaa la yiraahdaa ya salaanka la koreeyo laga dhaadhacayo salaan xataa waa Carabi af Soomaali ee bixin baan u baahanahay ya aslam waa Carabi weey marka salaanka laga ku gaarsiinay meesha kale halka intuu ka qaado wax ka dul boodsiinay meesha kale u gaarsiinaya ayaa bridge financing la yiraahdaa waxa weeyaan World Bank lacag bay nagu lahaa lacagtooy nagu lahaa inaga ma cancel gareyn karo qaanuunkoodu ma ogola waxaan ogolayn dalalka 190 gaaya wadale yaan ogolayn wax la cancel gareeyo marka maxaa la sameeyaa banku laakiin wuxuu na siin karaa lacag deeqayna siin karaa banku deeqna inama siin karo ilaa diinta iska baxeen walaga waa circle-ka weey soo socda ya deeq way noo hayaa deeqdayna ma siin karo ilaa diinta iska baxino deentana isaga inagu leh mana cancel gareyn karo bal daarinta ka war waxa la doonayaa marka wadan isa soo taaga oo yiraahda 300 milyan 500 milyan aad ku leedahay Soomaaliya aniga bixinaya maanta ku siinaya markaan ku siiyo maanta deynta waad ka cancel gareynaysaa
500 lacag u dhigatana Soomaalidaad siinaysaa laba dabeetana ay dib siinayaan ya eegada bridge financing waxa weeye Norway baa samaysay World Bank ya muxuu ahaynaa UK iyo EU na waxay sameeyeen African Development Bank formulada uu ku shaqeeya IMF tuna way ka duwan tahay wali waa kuwa wada bisha 25keedana loo balasay in la dhameeyo arintii deen IFS ku halkaas ku dhamaatay IFIs ku deentooda halkaas ku dhamaatay now wax kale oo fahamsiinaya arintii deen IFS ku sida u shaqeyso يعني waxyaalo dadku fahmi karaan baan ka sheekeynaya moogtay inaanay diintaasi dib inoo dhibi doonin uunadu ka soo qaad waa inaanay dib inoo dhibi doonin ka soo qaad in dhinaca la iska dhigi doono la inaga hor wareejin doono ka soo qaad ya inay waxoogaa soo harayaan ka soo qaad waxoogaaga soo haraya inaanay ku dhibi doonin ka soo qaad adeer arin la isla gartay weeyaan ka soo qaad waxaad uga soo qaadaysaa in baa meel la dhigayaa inta meesha la dhigay inaanay ku dhibin baa lagu talagelaya aniga wariga qaado adeer anaga ka shaqeynay 40 sano ka shaqeynay waa garanaynaa anaga naga qaata waxa weeye inaanay ku dhibin baa laga shaqeynay meeshaas la dhigaya lacagta hadii la damco inay dib iskaga bixiso lacagaad ku bixisaa lagu siina imika maxaan bixinay wax token money la baan bixinay imikadan oo bilownay bisha sanadka bilowgiisii $10,000 baan siinaa bishii IMF ta $2,000 waxaan siinaa African Development Bank waxa looga jeedaa macnaheedu waxa weeye nimayo xafaaratihiin ninkii garanayo xafaaratihiin gacanta ila ilaalada qabto leedintu kubiyo oo socodkaad barataan waa dhacaysaan dambi kala galeysaan waxaan doonaynaa sidii leedin xafaar bixin lahaa ya ayaan doonaynaa kala shaqeynaa waa leeyahay waxa weeyaan waxaan idin oranaynaa lacagta intaas soo hadhay ana lacag ku siinayeen laakiin waa inaad barataa sida wax la iskaga bixiyo xafaaru waa ka weey waxa weey qof socon kari waayay oo bukooday oo dhakhtarka jiifay muddo caafimaad ilaahay u keenay ma socon karayo maalintii ma loogan karayo taasoo kale ku dhacday baa la leeyahay xafaaratiin xafaara waxaad kaga saaraynaa milyan baan ku leeyahay baan ku oranayaayo inaad bil walba iska bixiso ayaa loo baahan yahay